kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah midowga murashaxiinta oo kulan degdeg ah ka yeeshay in magaalada Muqdisho aan lagu qaban doorashada xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliland ka soo galaya baarlamaanka cusub haddaba maxaa ka jira in mucaaradka ay James Iswaan kala hadleen in aan la qaban doorashada aqalka sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay shaacisay in la bilaabayo Ra'iisul Wasaare Rooble oo qaaday 3 tallaabo oo dhaawacaysa siyaasaddiisa iyo xubnaha mucaaradka ah oo go'aan midaysan ka gaaray maxay tahay qodobada saameynta ku yeeshay Ra'iisul Wasaaraha dalka madaxweynaha Koonfur Galbeed oo wajigabax kala kulmay kulankii uu la yeeshay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya maxaa ka jira in lafta gareen lagu dhex canaantay xafiiskiisa ma dhabba in looga digay inuu baydhabo ka qabto doorasho aan la isla ogolayn xogo dhammaystiran oo aan ka helnay kulankii maanta ayaan idiin soo gudbin doonaa Ra'iisul Wasaare Rooble oo soo saaray digniin adag oo ku socota hay'adaha garsoorka dalka kadib shir uu maanta ka qayb galay wararkeena kalena waxaa ka mid ah shirkii golaha wasiirada oo maanta baaqday haddaba maxay tahay sababta sarkaal iyo ciidamo ka tirsanaa booliiska Haramcad oo maanta lagu dilay duleedka magaalada Muqdisho kadib dagaal halkaasi ka dhacay qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana habeen Khamiisa 14 bisha koobaad ee Janaayo sanadka 2021 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane fadlan nala faafiyo wararka oo gaarsiiya saaxiibadiina idinka oo ku sheer gareynaya baraha bulshada mahadsanidin aan ku bilowno wararkeena waxaa goordhoweed magaalada caasimadda ee Muqdisho kulan degdeg ah ku yeeshay midowga murashaxiinta Soomaaliya ee u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya kulankoodan oo goordhoweed qabsoomay ayaa waxa ay markaasi kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka waxaana kulankooda uu daarnaa sidii magaalada caasimadda ee Muqdisho aan looga qaban lahayn doorashada xildhibaanada ee aqalka sare ka soo galaya baarlamaanka cusub ee dalka uu yeelanayo 2021 isla marhaantana laga soo dooranayo deegaanada Somaliland amaba gobolada waqooyi kulankan oo ay dhammaan markaasi xaadir u ahaayeen xubnaha ku jira midowga murashaxiinta mucaaradka ee iyagu u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxay isla garteen in markaasi aan la qaban doorasho taas oo ku saabsan mid aqalka sare ee xildhibaanada gobolada waqooyi ee Somaliland ka imaanaya waxaana jira warar sheegaya in James Iswaan wakiilka arrimaha Soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay ay markaasi kaga dalbadeen in aan la qaban doorashada aqalka sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dhawaan iyadu sheegtay in la bilaabayo gaar ahaan ay ka dhacayaan 8 magaalo oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay iyadu markaasi iclaamisay si kastaba ha ahaatee waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed Soomaaliya gaaray James Iswaan wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya isaga oo kala hadlay madaxweynaha Koonfur Galbeed in aan lagu degdegin qabashada doorashada xubnaha aqalka sare ee deegaanadaasi wali ma jirto is-afgarad laga gaaray arrimaha doorashooyinka dalka xaaladda dalka ayaana waxa ay tahay mid wali cakiran qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa toddobaadkii ugu dambeeyay ku dhaqaaqay tallaabooyin dhaawac weyn u geystay maqaamkiisa iyo mustaqbalkiisa siyaasadeed Rooble oo siyaasadda ku cusub ayaa ka sokow inuu ka soo bixi waayay mas'uuliyadda weyn ee xilka uu qaaday ayaa waxa uu markaasi muddooyinkii ugu dambeeyay ama maalmihii la soo dhaafay uu qaadayo tallaabooyin dhaawacaya siyaasaddiisa qodobada waaweyn ee Ra'iisul Wasaare Rooble ee dhaawac ku noqday waxaa ka mid ah ku dhawaaqidii in doorasho la aaday go'aankii uu Ra'iisul Wasaaraha ku shaaciyay inaan waqti kale laga lumin doonin ee maamulada iyo dhinacyada tabashada ka qaba doorashada 2021 ee loo dhaqaaqay doorashadii wuxuu kaliya muujiyay in uu madax u yahay ololaha doorashada madaxweyne Farmaajo oo uusan awoodin inuu ugu yaraan si uu markaasi isugu keeno maamulada iyo dadka ishaya uusan ka shaqaynaynin qodobka labaad ee dhaawacaya siyaasaddiisa maamulka doorashada oo uu ku wareejiyay wasiir dawlad ka tirsan xafiiskiisa wareegtadii uu Ra'iisul Wasaare Rooble maamulka doorashada uga xil saaray wasiir dawladda xafiiskiisa waxay ahayd arrin kale oo aad loola yaabay waxaana afayeenka xukuumadda uu ku qasbanaaday in uu caddayn ka bixiyo arrintaasi iyadoo uu joogo wasiirkii arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo federaalka oo hawshan si toos ah ay u hoos tagto in Ra'iisul Wasaaraha xafiiskiisa geeyo ololaha doorashada una xil saaro shakhsi wasiir dawlad ah
waxay muujisay sida doorashada 2021 loo rabo in loo maamulo oo aysan uga bixin gacanta madaxtooyada. iyo qodobka saddexaad ee ugu dambeeya oo ah weerarkii uu ku qaaday murashax xasan sheekh maxamuud oo hore dalka madaxweyne uga soo noqday. kulan uu la yeeshay ee madaxda warbaahinta muqdisho wuxuu ra'iisul wasaare Rooble si toos ah ugu weeraray mid ka mid ah murashaxiinta madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagoo ku eedeynaya musuqmaasuq iyo arrimo kale. wuxuu weerar kale ku qaaday aqlabiyadda beesha uu ka soo jeedo ee degta Galmudug iyo Hirshabelle isagoo ku tilmaamay beel qaylo badan laakiin aad u tiro yar, taasoo loo qaatay inuu ugu jawaabayay hadalkii ka soo yeeray Generaal Galaal. arrimaha laga soo wariyay kulankii ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxda warbaahinta waxaa si cad looga dheeday shakhsiyadda ra'iisul wasaaraha iyo qaangaarnimadiisa siyaasadeed. inkastoo wasiir ku-xigeenka warfaafinta isku dayay inuu difaaco ra'iisul wasaaraha wixii kulanka ka dhacayna ku sheegay in aysan ka turjumaynin siyaasadda xukuumadda, haddana ma ahayn wax la dabooli karo. arrimahan oo dhan waxay soo baxeen iyadoo dalku ku jiro xaalad adag una baahan yahay hogaamiyayaal iyo siyaasiyiin ee ka gudbin kara, balse ra'iisul wasaare Rooble wuxuu wadaa olole uu sumcadiisa hoos ugu dhigay uguna dhameeyay ee hadiiba uu lahaa mustaqbal siyaasadeed kadib dowladda madaxweyne Farmaajo ee uu ra'iisul wasaaraha ka noqday. barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaane madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen ayaa qorsheynayay in uu deegaanada maamulkiisa uu si degdeg ah uga qabto doorasho aan wadar ogol ahayn si 4 sano oo kale madaxweyne Farmaajo uu kursiga u sii joogo, balse waa laga hor istaagay arrintaasi waxaana lagu canaantay xafiiskiisa. wakiilka gaarka ah ee xogeyaha ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ninka la yiraahdo James Iswan ayaa safar degdeg ah maanta uu ku tagay magaalada Baydhabo. waxa uu Laftagareen ee ka hor istaagay inuu Koonfur Galbeed ka qabto doorasho hal dhinac ah oo aan laga wada hadlin, wuxuuna uga digay cawaaqib xumada ka dhalan karta isku dayga filla Soomaaliya ay gadaal ka riixayso. safar degdeg ah oo uu James Iswan ku tagay magaalada Baydhabo waxa uu yimid kadib markii la xaqiijiyay in filla Soomaaliya ay doonayso in Koonfur Galbeed ay noqoto albaabka ay ka galayaan doorashada si ay adduunyada ugu cadeeyaan in ay gudagaleen doorashada ka hor inta aan la gaarin February 8, 2021 oo ah maalinta ay ku eg tahay 4 sano ee Farmaajo loo doortay inuu dalka hogaamiyo. waxaa jira 2 arrimood oo waaweyn oo Laftagareen ku qasbaysay in uu deegaanada maamulkiisa ka qabto doorasho aan la isla ogolayn. arrinta koobaad ayaa ah in dowladda madaxweyne Farmaajo ay isugu dartay madaxweynaha Koonfur Galbeed lacag iyo xilal loo magacaabay xubno uu watay oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada gaashaanle sare Maxamuud Axmed Xasan Dalab, xogeyaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Maxamuud Ibraahim Nuur, saraakiil la dallacsiiyay iyo xubno cusub oo markaasi shaqaalaha rayidka ah ee dowladda lagu daray oo aan horey markaasi u diiwaan gashnayn. iyo arrinta labaad oo ah cabsi uu ka qabo haddii talada dalka ay markaasi ka wareegto Farmaajo iyo xertiisa in xabsiga laga sii dayn doono Mukhtaar Roobow Abu Mansuur, dibna loola xisaabtamo Laftagareen iyo cidda ku garab siisay in markaasi uu Koonfur Galbeed ku maamulo kursi dhiig uu ku daatay, taasina ay soo afjarto mustaqbalkiisa siyaasadeed. siday odorosayaan xeeldheerayaashu canaanta Iswan oo bilow u ah doorashada beesha caalamka ay uga digayso dhammaan dhinacyada isku haya in ay markaasi inay afduubaan doorashada dalka ayaa la rajaynayaa in ay taaka u dhigto damaca ay doonayso filla Soomaaliya. waa hagaag weli warqad TV ayaad nagala socotaan. iminkana shirka golaha wasiirada dowladda federaalk ee Soomaaliya lagu waday in maanta uu qabsoomo ayaa baaqday iyadoo aan si rasmi ah loo sheegin sababta baaqashada. wasiirada ayaa ka qayb gali lahaa kulankan waxaana ka hor inta uusan kulanka soo dhawaan loo diray fariimo laguna wargeliyay in shirkii maanta dib loo dhigay iyadoo aan la sheegin sababaha dib loogu dhigay shirkii maanta oo looga hadli lahaa qodobo xasaasi ah oo ay ku jiraan in markaasi safiiro lagu meel mariyo. kulanka golaha wasiirada ayaa lagu waday in maanta lagu ansixiyo 15 safiir oo cusub kuwaasi oo dowladda Soomaaliya u diri doonto wadamada caalamka ee dowladdu ku leedahay safaaradaha. dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo saaray digniin culus taasi oo si gaar ah ugu socotay hay'adaha garsoorka dalka. ra'iisul wasaare Rooble ayaa uga digay hay'adaha garsoorka in ay u cadaalad fali waayaan bulshada Soomaaliyeed xilli muddooyinkii dambe cabasho ballaaran ee laga muujinayay garsoorka Soomaaliya. waxa uu sheegay in uu ka warhayo cabashada badan oo bulshada ay ka muujinayaan garsoorka dalka, taasi oo uu maanta uga digay bahda garsoorka.
digniintan ayaa imaanaysa xilli dhowr jeer bulshada qaarkood ay cabasho xooggan ka muujiyeen bahda cadaaladda oo ay sheegeen in aysan maxkamadaha dalka ka cadaalad helin. ugu dambeyntiina dagaal saacado ka socday deegaanka Jazeera ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa inuu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. ciidamada booliiska gaarka u tababaran ee loo yaqaan Haramcad iyo maleeshiyaad macawisley ah ayaana dagaalkan u dhaxeeyay, waxaana muddo dadka deegaanka ay sheegeen in cabsi ay soo food saartay maadaama saacado ay halkaasi ku dagaalamayeen ciidamada Haramcad iyo maleeshiyaadka macawisleyda ah ee halkaasi ku sugnayd. maleeshiyada macawisleyda ayaa doon qaad ka soo dejinaysay xeebta waardiye ka ahaa sida la sheegay, xilli ciidanka Haramcad ay isku dayayeen in ay qaadkaasi sharci darrada ah dalka uusan soo galin isla marhaantaana ay la wareegaan, balse waxa ay dagaal qaraar kala kulmeen maleeshiyaadkii waardiyaha ka ahayd doontaasi qaadka siday. ciidamada Haramcad ayaa waxaa ka geeriyooday sida la sheegay sarkaal dhalinyaro ah oo magaciisa lagu sheegay Cabdicasiis Axmed Maalin Guur. bil ka hor ayaana sarkaalkan geeriyooday loo dalacsiiyay darajada xidigle, waxaana jiray khasaare kale oo soo gaaray ciidamada ka tirsan booliiska Haramcad. xaaladda ayaa markii dambe caadi ku soo laabatay, dhowr jeer ayay ku dagaalameen ciidamada Haramcad iyo maleeshiyaadka macawisleyda ah deegaanka Jazeera ee duleedka magaalada Muqdisho. qodobkaas ayaa u dambeeyay warkeena tan iyo warkan war la mid ah, inta aynu dib ugu kulmi doono nabadgelyo.